su-aasha ugu horeysa waxa weeye halkoo ku dhashtay prime ministerka magaalade. The first question is that where our newly elected prime minister was born. Who will come on the stage? رئيس الوزراء عصوم مدني حمزة عبد البر. middle labaad waxaa hambalyo u dirnay jaamacadeena badankiisa waxaa laga warhayaa in xafladahan oo kale lagu qabanin sababta kaliya lagu qasabtay in xafladan halkan lagu qabto waxay tahay Xamza waxaa u haysanaa inuu naga mid yahay IIU family marka qof kastoo arday ay meeshaan dhigato position kastoo nolosha ka gaaro waxay ka mid tahay anagoo gaaran oo kale because family-geena oo kale oo consider gareynayna haddii qaab anaga naga mid ay ahaa lahayn meeshaas nolosha ka gaari lahaayeen anagoo dhan saanaas kugu soo bixi lahayn waa u dabaaldegi lahayn so habeenkan cawadan sababta ugu weyna meesha u joogna waa taa mada sidaa darteed waxaa sharaf inoo ah dhammaanteena jaamacadda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia dhammaanteeda in u duceyno iskugu imaano u dabaaldegno ra'iisul wasaaraheena cusub asagana waxaan rajeynaynaa in ducadeena wax ugu tari doonto halaas ay kusoo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Thank you, Mr. Jamal, and thank you very much, Mr. Ahmed. And now, before we close our speech, we would like to call one of the most honorable guests we have tonight here, Mr. Badri Hussein Sandal, Educational Attaché of the Embassy of Federal Republic Somalia. Welcome, Mr. Badri. soo dhaweeya Badri Hussein Sandal qabsamaha dhinaca waxbarashada iyo oo stage-ka soo koray shacabka loo galo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مرت الشرفة خيمها يقاياها مدن سخاصة وحن رباينا نشانس كان وفايد يستو مسؤولين برنامج كانت شو قروح بدل له خبر خابيي هي اللي هون تبا oo ka mid tahay ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Malaysia khaasatan hadday noqoto xawaaladaha hadday noqoto iskuulada waa ku mahadsantihiin sidaad mar walba u garab taagan tihiin ummaddiina Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Malaysia haddii aysan jiri lahayn wax badan ma hagaagi lahayn سخاسة مرتدى نلقى بسعاوة هول كان محاضر كا وحكمنا أستاذ دكتور داير سيدوكالي أستاذ عبد الرحمن مركور لوي غير بريطانيا إلا لكن هذا لو سنة عبد الرحمن بريطانيا سكول كيس لو ما يحضري أنت سكدي حلفتها ناتفو قروح بدلنا هدي أي سنجري لهاي خابو آتي أتوين وجينا قروح بدل له ما يصير سكوي مال لهين وحاول ما تعلنها مرلبات قلت لك السوق من قابي حلفتها ناتف قروح بدل له خاصة هرموتك إنوع هاي أستاذ عثمان إن رئيس وزراء صاحبك سخاسك ساسلين هاي أستاذ وكم ما صلت هاي جود ذاك دلالك sidoo kale teamkii mediaha teamkii presentationka dhammaan guddoomiyaasha dhammaantiina waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh anuu hadalkayga soo koobaya barnaamijkan caawa aadka u quruxda ballada leh waxaa hadafkiisu yahay soo dhoweyn iyo duco aan u samaynayno prime ministerkeena master Xamza Cabdi Barre. مستر حمزة عبد برre وفرحت كوني إنه تسهل إنه كمدة هاي
ardaydii ka qalin jebisay jaamacadaha ku yaala dalka Malaysia khaasatan jaamacadda ku sugannahay caawa shaqeeyay aad ayuu mahadsan yahay. Thank you, Mr. Jamal, and thank you, Mr. Badr Sando, for being our guest of honor to this tremendous night. Thank you to everyone who came up on this stage to provide their aspiring speech and share their words of wisdom with us. Now, it will be start of our next informal session of this night, where there is amazing entertainment, which will be hosted by Mr. Jamal, very well known as Milano. Welcome again, Mr. Jamal. The floor is all yours. So do. aad ayay mahadsan tahay walaashay Khadija. Barnaamijka qaybtiisii dambe ayaynu gudagelaynaa haddii aan la idmo. Waan inoo gabagabo ciise gubta iyo ismaslaxana mar baynu isu sii dayn doonaa haddii Allah idmo. Guddida barnaamijka soo qaban qaabisay waxay isku dayayaan inay su'aalo ka weydiiyaan dadka aadka ugu badan ee meesha fadhiya. 5 su'aalood oo gaagaaban oo ku saabsan taariikhda ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha iyo waddanka aynu ka nimid Soomaaliya. Khadija waa in adaa bilaabi doona. Su'aasha koobaad way fududahay, laakiin qof geesi oo halkan soo istaagay ka jawaaba ayaa loo baahan yahay. Maxay oranaysaa? Su'aasha ugu horeysa waxa weeye halkoo ku dhashtay Prime Ministerka magaalada. The first question is that where our newly elected Prime Minister was born. Who will come on the stage? عندك جوابي كرتو فضلا الكلمة. Khalid, yes, Khalid, come here. Sa'al kalau gerak. كل وقش كذاك قلت له حان الله كسمايا كسمايا كاري wait. صلابة. What's your name? مقعد المشهد. أنسة حسن محمد. Thank you أنيسة. وصح جوابتي أنيسة هادرتين كجوابتي وحو كدشتي كسمايو. The BM born in Kismayo, and Anissa said the correct answer. Now, Mr. Milano will ask the second question. Su'aasha labaad waxaa laga yaabaa inay laftigeeda jilicsan tahay. Yaa garanaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud meesha uu ku dhashay magaalada. Yaa stage-ka imaanaya. And the second question is that where our current president born as well? In which city? Adoo ku bilaabaya magacaaga. magacayga koowaad waa Ibrahim. magacayga koowaad waa Ibrahim Bare. Yeah. jawaab ansarkeed waa Jalaksi. Sacabka Ibrahim Bare.